0 4 ai ragazzi. Io do
Thank you.
iyo shaqadiisu wanaagsan وأمام الإسلام أما ورام الإسلام يا سيدنا عيدا كرم حلوك وبرو قاطع فمكا سيدنا وإساء كان وحايا من سهلين كما هكذا يوصيل عيا من سهلين إنما الصومالي الذي بين الوضاء أيمنه أو معيري يوكيجيان وعيدا مضح حيرتها فمكا سيدنا ومعيري كسي ciidamada Soomaaliland ma yaqaanaan gardarrada hase yeeshee cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheeda waxa ay ka abaalmariyaan gardarradaasi ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamadu oo haystaan niyadista shacbiga iyo taageeradooda waxay had iyo jeer heegan u taagan yihiin difaaca qarannimada waa kuwa aan habeen seexan har qabowna aan dubaaqa gelin waa kuwa adigoo hurdaa habeen kasta kugu taagan iyagoo aan fadhiyin jiifin ee qoriga dhegta ku sita oo taagan ilaa laga ka farmiyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland qaybahooda kala duwan mid waliba hawl gaara ayuu qaabilsan yahay ciidamadaasi hawlaha gaarkay ay ku yihiin oo kuwa laga gamay oo maanta intii Soomaaliland jirtay aan lagu tilmaami karin in wax dayici ay ku yimaadeen waxaan idinku soo gudbinayaa heesta ciidanka بسم الله الرحمن الرحيم مقعي يوسف عبد الله محمد يوسف waxaan halkan ka hambalyeynaa dhammaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidan weynaha qaranka ciidamada bilayska ciidamada dabdamiska dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay 18 May xigta bash barwaaqo ictiraaf aynu gaarsiinay waa maalintii la soo noqonay xorriyadeeni iyo calankeeni aynu u geynay nimanka xubnaha koonfureed u geynay waa maalintii la soo noqonay geedkani waxa weeyaan geedka nabadda ee Soomaaliya ay ku nabad iyo caanamaashay ee Soomaaliya ay ugu horumartay ee Soomaaliya ay ku barwaaqowday ee Soomaaliland ay horumar ku gaadhay لا إله إلا وحلا شيء كرمها ما نسوا كوبي كرو وحلا شيء كرمها عاد بانو في العسنة جيت كنا جيت وحنا وصفنا
deeqay deeqaluulay iminkaad wax naga duubaysaa geedkii nabadda Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland Soomaaliya lagu aasasay odayaashana waa odayaashii Soomaaliya rugga u taagi weeyay in badan kasoo shaqeeyaan u fadhiya waxay u fadhidaa boqolkiiba boqol ay maanta u fadhidaa waxaan ugu baaqi lahaa ummadda Soomaaliland marka horeysa guul iyo gobonimo waa hesheen waa guulaysateen gobonimona waa haysataan nolol wanaagsan iyo ciidan qaran iyo dawlad iyo madaxweyne ku xigeen ina waa leedihiin dawladda Soomaaliya oo dhisan baa tihiin dalkiina horumar ka sii wada oo sidaa kor ugu sii socdo iyadoo ayna u kala hadhin bulshada guud ahaan Soomaaliland xuska dalbaadega 18 May ayaa waxa hadda midagtayda ku sugan ururka naafada ee Soomaaliland iyo ka qayb qaadanaya xuska 18 May wala waxaad iga warantaa dareenkaaga maadaama aad ka qayb qaadanayso munaasabada qaran ee xuska 18 May bismillahir rahmanir rahim kulli aam wa antum bil khair Ramadan kareem shucuurteeda alxamdulillah shukri waxaan ilaahay ka baryayaa bil Ramadan weeyane Soomaaliland si degdeg loo ixtiraafo iyo qabiilada Toronto ya ilaahay ka baraya Soomaaliland sinaan iyo cadaalad horumar ilaahay garasiya ilaahay uga baraya wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dareenkayga waxa inaan gurgurta mooyee wax kale ima harsana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Khatra Cilmi Yuusuf maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalintii xornimadii Soomaaliland ay dib ula soo laabatay sanad guuradii 28aad alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa igu simay inaan 28 sano maxay tahay aan joogo aan dabaaldigeeda ka qayb galo maantana waaba maalintay igu wasay farxad badnayd maanta maalay ka wacan tahay garanba maayo waxaan aad iyo aad uga qiirooday oo ilma isku kay soo taagtay dhalinyaradii jaamacadaha dhamaysay ee shaqo qaran soo dhamaysatay iyadaan cidi khasbin dirayskii intay soo xidhaan halkaa horteena maray ayna miyaha laba lahaa waa wax lagu faamo tiknikadeeni halkaa maraysay waa wax lagu faamo dadkeenu sida uu u jecel yahay Soomaaliland yani caruurtii dhalatay waqtigii aan dagaalba jirin baa aad u jecel waa wax taariikha waa wax qurux badan aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu waxa la Saciid Ibraahim Cabdi markii goorisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya aad baan u mahadcelinayaa markii goorisay uu noo sameeyay shaqo qaran aad buu maasay wallahi wax weyn baan ka faa'iideynay taan tababarka ku jirnay militarigan la tababarkana soo xidhay si wanaagsan baa wax u qaadanay intii tababarka ku jirnay aad baan u maasay xuska wallahi anu warta waxa la daayay Soomaaliland baa la daayo maanta aad baan u faraxsanahay suxuurteeda lama soo koobi karo May waxaan uga qayb qaadanaa libaxan ka qayb qaadanaynaa xalay maanaan saxan xiise May naga hayo awgeed marka waxaan ka qayb qaadanaynaa farxad iyo ciid wanaagsan waxaynu ogsoonahay inuu libaxu dhibaatooyin badan leeyahay marka la eego halistiisa isku aaminteen libaxan aad iyo waan dhex saxnaa aad iyo aad baan aaminsanaa anagu wax dhiban anagu ma aragnaba marka waxaan u aragnaa muwaadin Soomaaliland oo aragnaa daawadayaal waxa uu sheegay kaasi inuu ka mid yahay libaaxu xuska 18 May uu yahay mid xusaya qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muwaadinimadiisa wuxuu sheegay inuu muwaadin reer Soomaaliland yahay libaaxaas uu ka qayb qaadanayo maalinta 18 May